الله أكبر. allaha u naxariista waxaa maanta magaalada Boorama aas qaran loogu sameeyay Sheekh Maxamed Sheekh Ibraahim Kulmiye oo kamid ahaa culimada Soomaaliyeed kuwooda ugu faca weyn. Sheekha oo shalay ku geeriyooday dalka Djibouti ayaa waxaa maanta aas qaran loogu sameeyay gudaha magaalada Boorama. aaskan qaran ee loo sameeyay marxuumka ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo iskugu jira wasiir ku-xigeenno, agaasimayaal, xildhibaano, maamulka gobolka iyo kan degmada Boorama, kuwaasi oo tacsina u diray eheladii iyo qaraabadii uu marxuumku ka baxay allana uga bariyay in jannatul firdaws uu ka waraabiyo. ilaahay ha u naxariisto, qabriga ha u nuuro. horta xaasatan aniga marna walaalkay igu qaaliyo ahaa, marna sheekhaygii buu ahaa. waxaan halkan tacsida inaan ka gaadhsiiyaan rabaa meel kasta oo ay kala joogaan ehelka iyo qaraabada iyo intii uu ka tegayba inuu ilaahay dhammaanteen bay naga wada siiyo samiriyeen. sheekheennii buu ahaa, sheekh qaaliyu ahaa, anigana igu sii qaaliyo weliba. dee ubadkuu dhalayna waad garan karaysaayo waxa weeyaan beel ballaadhan buu ahaa sheekhu. wuxuu ka tegey dee ummaddiisu meel kasta bay kala joogeen. maanta wakaa aynu dee joogno aaskiisii. dhammaan ummadda muslimiintana waxaan leeyahay u duceeye sheekha inaynu nidhaahno samir iyo iimaan. waxaan halkan tacsi tiiraya uga dirayaa Sheekh Maxamed Sheekh Ibraahim Kulmiye oo xalay toole la keenay wasaaka la keenay aaskiisii magaalada Boorama la keenay oo maanta galabta Jimcaha aan ku aasanay halkan. sifaha qofka Jimcaha la aasaa waa sifa qaaliya say diinteenu sheegtay. taasina waxa ay ka marakacaysaa inuu sheekh waa sheekh weyn oo qaaliya. anoo hadalka soo koobay waxa aan halkan tacsi tiiraya uga dirayaa dhammaan eheladii, qaraabadii, ehelkii iyo caruurtii iyo dhammaan shacabka gobolka Awdal ee uu sheekhu ka baxay. waxaan leeyahay samir iyo iimaan. aad iyo aad baan u tacsiyeenayaa dhammaanba ummadda muslimiinta ee uu ka baxay Sheekh Maxamed Sheekh Ibraahim Kulmiye oo maalin khayr leh waxa weeyaan gudgalay. maanta waa maalin khayr badan, waa maalin Jimcaha. maalintaa Jimcaha khayr badan uu gudgalay. ilaahay waxaan rajaynayaa inuu ka dhigo kuwii uu gudka ku janneeyay. waxa weeyaan insha Allah haddii ay baydmo oo naxariistiisii iyo jannooyinkiisa ku casuumo. sheekhu wuxuu ahaa sheekh caalimo weyn buu ahaa, sheekh dhammaanba ummadda Soomaaliyeed ee joogtaba ay taqaanay buu ahaa. sheekh waxa weeyaan Djibouti iyo Itoobiya iyo Soomaaliland intaba caalamka ahaa lagu yaqaanay. dhammaanba ummaddii waxa weeyaan intaa ku dhaqnay baa tacsiyeenaya. waxaa si gaar ah uga tacsiyeenaya axbaabtiisii oo aad iyo aad waxa weeyaan u soo camiray jinaasadiisa. waxaan leeyahay jazakallah. أنا أدياد تحسين يا أرورتي سي أوريسي وكتبي ولا هي لها قلبي بعيدات كيو تاسع اللي بود حكومية هو لوك لورينا ياو. وحن ما أنتم جرنا وجيري ذي شيخيني فضيلة الشيخ محمد شيخ إبراهيم شيخ كلمية صاحب السجادة المؤرخ شيخ وحوى تاريخيها إلهي وحنوي ديننا مركب كوبات إن إلهي ونحرست إلهي النبي محمد بوجعل النبي محمد إلهي إنه لحريريا إلهي ويديننا dadkii uu ka dhintay dhammaan muslimiinta oo dhan waan ka tacsiinayna gaar ahaan Soomaalida gaar ahaan xirtiisii ayaan ka tacsiinayna sheekha ilaahay ha u naxariisto walaalkeen Allah ha u naxariisto qabriga Allah u nuuro qabriga Allah u faalaaliyo intii xiriirkii nabiga calayhi salaatu wa salaam alayhi insha Allah ka yeelo amiin intii cadaab qabriga lagu xiriyo Allah ka yeelo intii cadaab oo dhan laga nabadgeliyo Allah ka yeelo ilaahay uu nala sugay waa kii saddexaad waxa uu horeeyay Sheekh Maxamed Khalifa waxa uu ku xigay Sheekh Ibraahim inta baa kalena aalay waxa badaydi kii uu dambeeyay saddexaad waa kan ilaahay ku khayr qaba oo keeno amiin runtii sheekh wuxuu ahaa saddexda dal Djibouti Soomaaliland iyo Itoobiya runtii xeer badan baa insha Allah hogaaminayay علينا حرتنا إلهي بدل كوب هالسيو وعن كلام كتحسيدنا يا أهلكي يا قرابتي يا عرورتيسي يا حاسسكي
ilaahay ha u naxariisto iyagana ilaahay samir iimaan ka siiyo runtii sida loo sheegay wuxuu ahaa nin aad u qaaliya nin aqoon leh oo ku naanays dheeraan Nasrudiin ducadaas shacabka inta laga soo ururin waxaan leenahay ilaahay ha ka aqbalo ducada ay u baryayaan oo ka baxay sheekheeni weynaa Sheekh Kulmiye waxaan ilaahay uga baryayaa jannatul firdawsa sidaas lamida sheekhu sida laga soo waramay wuxuu ahaa caalim weyn oo dad fara badan oo deegaanada Djibouti iyo Ethiopia iyo Somaliland iyo Soomaalida kale ay ku xidhnaayeen sheekh weyn oo loo soo cilmi doonan jiray buu ahaa ducadiisu maqbuul ahayd sheekh weyn oo la booqan jiray buu ahaa ilaahay waxaan uga baryayaa jannatul firdawsa inuu geeyo ummadihii faraha badnaa ku xidhnaana bedel khayr qaba inuu ilaahay siiyo kullayaan halkan waxa ugu horeeya oo taxsuub diraya qoyskii iyo qaraabadii uu ka baxay sheekhiina weynaa Sheekh Kulmiye innakana dhammaan uu naga wada baxay kullay wuxuu ahaa sheekh caalima oo waxa weeyaan Djibouti ilaa Somaliland ilaa geeyiga Afrika laga yaqaano oo caalima ilaahay waxa ka rajaynayaa bedelka mid khayr qaba inuu inoogu bedelo maanta waxa naga baxay tiir weyn sheekheeni weynaa Sheekh Kulmiye الله ونحرسته كل طريقة ولا وضع مرة يلا كل وكل الرياض وحليه قيسكي يا قرابضي أهل كيو كبر حيبة على سمري إيمان صالحين نقول السيرة كنت خلص عربية دينته إسلام لماذا إيمانك أيوة كنت أكره إنساكي شيخ إبراهيم بكالو أبايها أيوة لا سكره أكيد كنت أكره ودينتي الطريقة دي العلمي وهذا كذا حرف وشيخ قاليا قيمة كلها الدوكة مبديسون أها وناهين قبيل أما بيتعايل هم مبديسون إلهي درسي الحب في الله والبغض في الله إلهي درسي وحب تعالوا إلهي درسينا وحنا حديث كلام ليس يلوحها المال مع من حبه إنه بعد تعالى ما يوم القيامة رسول بحياة مركب واحد يسمع ما تسكيبه نزيه بالكلمة مجلس من محبيه أصحاب المكوين بمجلس إلهي الدرسي أي قاعدة لسوق بسري ومبدأ الطريقة القادرية الشريعة شريعة دي أو طريقة وجود أو حقيقة وجود اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد النبي الأمين هذا الآن أولاد بخير وعلى الصبر